wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gaaray deegaanka Godilnaabe oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa safar dhulka uga soo amabaxay magaalada Dhuusamareeb oo uu maalmahan howlo shaqo u joogay isagoo kulamo la qaatay madaxda Ahlus Sunnah ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb. kulamadaasi oo aan la isku afgaran kadib shuruudo Ahlus Sunnah ay ku xirtay dawladda Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha ayaa xalay magaalada Dhuusamareeb kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka Galmudug ayagoo ka wada hadlay sidii loo qaban lahaa doorashada Galmudug. Xasan Cali Khayre ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Cadaado halkaas uu kulamo kula leeyahay madaxda Galmudug iyo waxgaradka reer Cadaado. isku soo wada duub xaalka Galmudug ayaa haatan yeeshay waji cusub iyadoo madaxda dawladda federaalka ay rabaan in doorashada Galmudug lagu qabto Dhuusamareeb halka madaxweyne Xaaf uu rabo in doorashada lagu qabto magaalada Cadaado. lama saadaalin karo waxa ka soo bixi kara wada hadallada magaalada Cadaado ku dhaxmari doona ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Xaaf.